kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan warbixin aan ku eegi doono doorashada Soomaaliya ma saameyn doontaa dawladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya xilli dhawaantan la rajeynayo in dalku uu galo marxalad doorasho ah taas oo aan waxba ka bedelnayn doorashadii 4 sano ka hor dalka ka dhacday warbixinteena ayaadna ku daawan doontaan anagoo si gaar ah u dul istaagi doono marxaladihii kala duwanaa ee doorashada dalka ay soo martay iyo sidoo kale waxyaabaha caqabada ku noqon kara doorashada dalka ka dhacaysa iyo sidoo kale faragelino kala duwan oo dawladaha shisheeye looga cabsi qabo inay ku sameeyaan doorashada dalka iyagoo ujeedooyin kala duwan ay ka leedahay dawlad walba faragelinta doorashada Soomaaliya kadib markii uu fashilmay hiigsigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayay in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah dalka waxa uu jeeysan doonaa doorasho xulasho ah taas oo aan waxba ka duunayn doorashadii dhacday sanadii 2016 taas oo ku suntaneyd musuqmaasuq iyo sidoo kale awood sheegasho walaaca shacabka Soomaaliyeed ay qabaan ayaa ah faragelin shisheeye xilliga doorashada haddaba waa maxay sababta dawladaha qaar ay u soo farageliyaan arrimaha doorashooyinka dalka iyo waqtiga doorashada ay dhacayso Soomaaliya iyadoo ay jiraan dawlado badan oo si gaar ah isha ugu haya arrimaha doorashooyinka dalka ayaa haddana waxaa jira dawlado si gaar ah loogu eedeeyay inay soo farageliyaan marxaladda doorashooyinka ee Soomaaliya waxaana doorasho walba markay soo faragelinayaan la sheegaa inay tahay dana gaar ah inay ka leeyihiin danahaas oo isugu jiro mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed dawladaha faragelinta ku sameynaya Soomaaliya waxay wada xaqiijinayaan danahooda ammaanka iyo sidoo kale dhaqaale balse waxay ku kala gedisan yihiin wadiiqooyinka ay u marayaan kuwaas oo kala qaadaya laba wado kuwa u arkaya in ay danahooda ku xaqiijin karaan Soomaaliya oo leh dawlad nugul maamul ahaan iyo ciidanba iyo qaar aaminsan in danahooda ay ku xaqiijin karaan Soomaaliya oo leh dawlad ay xoog badan yihiin hay'adaheeda dastuuriga lehna cudud ciidan faragelinta ugu khatarta badan waxay ka kala imaanaysaa dawladaha dariska ah iyo kuwa qaliijka Carabta Imaaraadka Carabta wuxuu danaynayaa in uu si xaraash ah ku hantiyo dekedaha dalka halka Kenya ay rabto in ay si sharci darro ah ku milkiso qayb ka mid ah badda Soomaaliya waxaa xusid mudan in Itoobiya uu hunguri kaga jiro in Soomaaliya ay la saxiixato heshiis aan dheelitirnayn si ay uga faa'iideysato dekedaha Soomaaliya dalka Qatar oo si weyn ay isku hayaan isbahaysiga Carbeed ee uu hogaaminayo Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa ku loolamaya siyaasadda Soomaaliya balse ilaa iyo hadda ma cadda danaha muuqda ee dalka Qatar uu ka leeyahay Soomaaliya marka laga reebo in uu si xor ah u isticmaalayo hawada Soomaaliya si aysan u saameynin cunaqabataynta ay saareen isbahaysiga ay hogaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Turkigu wuxuu Soomaaliya u soo birmaday xilli dadka Soomaaliyeed ay joogeen qoys gacan furnaantiisa iyo taageeradiisa shuruudda aysan ku xirnayn wuxuu ku kasbaday qulubta malaayiin Soomaaliyeed waana dalka kaliya ee dadaaladiisa dib u dhiska si cad looga dareemayo dhinacyada ciidanka waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasoo ka dhigan in Turkigu uu yahay dal doonaya in uu la yeesho dal kale xiriir ku dhisan sinaan iyo sidoo kale iskaashi ka fog weeqid iyo sidoo kale ka faa'iideysiga tabardarrada dal kale waxgarad badan ayaa rumaysan in doorashada nagu soo aadan ay si weyn uga hardami doonaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo kaashanaya Kenya waxaana la saadaalinayaa in dhaqaale xoog leh la adeegsan doono si codadka loo gatigabi ahaantoodba haddii doorashada madaxtooyada Soomaaliya ay ku guuleystaan jilaayaasha jaalka la ah Imaaraadka iyo sidoo kale Kenya waxaana shaki ku jirin in uu dhaawac soo gaarayo xiriirka waxtarka leh ee dadka Soomaaliyeed ay la leeyihiin Turkiga maadaama Imaaraadka Carabta iyo Kenya aysan dantooda ku jirin xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga waxaa xusid mudan in sanadii 2016 uu xumaaday xiriirkii ka dhaxeeyay Sacuudiga iyo Iiraan ayna saameysay xiriirka Soomaaliya iyo Iiraan sida ku cad dukumeenti ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters Soomaaliya ayaana $50 milyan oo dollar ka heshay Sacuudi Carabiya bishaas oo ay u jareen xiriirka Iiraan dhammaan dawladaha shisheeye ee faragelinta ku haya Soomaaliya ayaa waxaa jiro inay xiriir dhow la leeyihiin shakhsiyaad siyaasiyiin ah kuwaas oo eeganaya danahooda gaarka ah balse aanan fiirinin danaha danta iyo dalkaba xilligan waxaa jira siyaasiyiin aad loogu saadaalinayo inay noqon karaan madaxda dalka ee soo socota maadaama dawladaha shisheeye mid walba uu xiriir dhow kala dhaxeeyo waqtigaana waxaa jirto dadaallo uu midba midka kale ku doonaya inuu kaga hormaro iyadoona kaliya guushu ay tahay fursad dhaqaale midka hela waxaana xusid mudan in dhammaan codadku ay doonayaan in kuwa qaar gebi ahaanba ay gataan waxaanan meesha ka marnayn oo la aaminsan yahay inay dhici karto musuqmaasuq taas oo lagu sameeyo habka doorashada iyo nidaamka codbixintaba waxaana Soomaaliya xilligan lagaga cabsi qabaa in mar kale ay gasho dib u dhac
maadaama 30 sano Soomaaliya ay ku jirto marxalad dib u dhac ah xilligan oo ay soo kabsanaysana waxa aad u xumaanay rajadii ummadda Soomaaliyeed maadaama dawladdii tan ka horreysay ay ahayd mid booskan soo gaarsiisay dalka dawladdan ayaan laga sugay inay hore u sii dhaqaajiso waxaana Soomaaliya qorshaheedu ahaa iyo rajada joogtada ahba in 2020 ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah balse taas ayaa fashilmatay kadib markii madaxda dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay hore u dhaqaajin waayeen waxna ay ka qaban waayeen muddadii ay xafiiska joogeen oo online-ta doorasho qof iyo cod ah balse ay soo baraarugeen goor dambe oo doorashada aysan ka arsanin xitaa muddo hal sano ah taasna waxay meesha ka saartay in doorasho qof iyo cod ah la qaban karo doorashada soo socota ee Soomaaliya waxay noqonaysaa doorasho ka adag kana duwan doorashadii hore ee dalka ka dhacday sanadii 2016 waxaa jirta in doorashadan ay tahay mid si weyn loogu loolami doono siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ayaana xilligan isku diyaarinaya in doorashadaas ay ku yeeshaan qayb weyn oo muhiim ah waxaana la ogyahay iska qabsiga iyo muranka doorashadan kala dhaxeeya waxaana la wada ogsoon yahay doorashadan iyo sida ay ugu heshiin waayeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee dalka habka loo maamulayo iska qabsi muddo dheer taagnaa ayaana ugu dambeyntii waxaa xal lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shir ay garwadeyn ka tahay beesha caalamka kaas oo lagu amray dawladda Soomaaliya madaxdeeda inay isugu yeerto madaxda dawlad goboleedyada si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya ayaan isku afgartay in doorasho dadban dalka mar kale uu galo halka mowqifkii madaxweynaha ee ahaa doorasho qof iyo cod ah uu ka tanaasulay waxaana madaxweynaha dawladda Soomaaliya xilligaas lagu amray in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ee uu dalku yeelanayo kaas oo hore u dhaqaajin doono doorashada dalka iyo dardargelinteeda fursadaha la haysto ee muddada waqtiga oo aad u yar ayaana xilligan xukuumadda waxaa laga fadhiyaa inay hore u ambaqaado doorashada dalka madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa xilligan aad kaga cagadiidaya in ay soo magacaabaan guddiyadii doorashooyinka ku matali lahaa iyaga qaar ka mid ah dawlad goboleedyada waa ay soo magacaabeen oo ay soo dhamaystireen halka kuwa kale oo maamulka Jubbaland uu ka yaana ay ku harsan tahay wali madaxtooyada dawladda Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafo waxaa ka taagnaa oo la ballaaran oo ku aadan sidii madaxtooyada dawladda Soomaaliya ay ku heli lahayd xildhibaano badan oo hoos yimaada madaxweynaha dawladda Soomaaliya kuwaas oo u codeynaya madaxweynaha marka la gaaro marxaladda doorashooyinka xildhibaanada laga soo dooranaya deegaanada kala duwan ee dalka ayaana waxaa loo ballan qaadayaa in la siinayo lacago sidoo kale shakhsiyaad ayaa jira iyagana loo ballan qaadaya inay noqon doonaan kuwa hela kuraasta xildhibaannimo waa haddii ay codka siinayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka siyaasiyiintu iyagu kama liitaan oo waxay doonayaan in ay xildhibaano badan ku yeeshaan baarlamaanka cusub ee dawladda Soomaaliya ee la soo dhisi doono waase loo joogaa halkii xaaladdan ay ku dambayso inkastoo mucaarad iyo madaxda dawladdu aysan u kala harin doorashada dalka waxaana ruux walba uu taagan yahay booska ah in uu helo kursiga lagu loolamayo ee Soomaaliya dhaxal siiyay dhibaatada maanta ay dhexda ka taagan tahay daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warbixinta aan sida gaarka kaga hadlaynay doorashada Soomaaliya ma saameyn doontaa xiriirka dawladaha qaar kala dhaxeeya Soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo walaacna laga muujinayo in faragelino shisheeye ay ku timaado doorashada dalka waad ku maasantiin la socodka iyo daawashada warbixintan iyo guud ahaanba warbixinada iyo wararka ka baxa All Banaadir Online